sida baryahan dambeba soo ifbaxaysay waxaa dib u furantay badii dhibtii burcadbeedku ay ku hayeen maraakiibta adduunkana waayadan dambe wax badan ayaa maqlayseen marka waxaan rabnaa inaanu idinka tusno dhan kale oo ah maadaama ognahay dhibta ay u geystaan maraakiibta adduunka dib miyay u geystaan Soomaalida ama dadka degan meelaha maraakiibta ku haystaan maxay ku soo kordhiyaan faa'iido maxay u dhimaan dhalinyarada joogta Soomaalida degan halkaas يعني dhulka ay maraakiibta ku haystaan wax dhiba miyay u geystaan hadaba khudbad ay soo jeedisay wasiirka wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Marwacaasho Geele Diiriye ayaa waxay ahayd khudbad aad iyo aad cajiib ah khudbadan oo ah khudbad ay Caasho si fiican uga warantay dhibta haysta dadka meelahaas ku nool iyo waxyaabaha ay burcadbadeedku soo kordhiyeen burcadbadeedda dadka lagu magacaabay sida ay Marwacaasho sheegtayba waxay u badnaayeen markii ugu horeysay laba qaybood dadkii miyiga ka yimid waaga hore oo aan xirfad lahayn oo magaalada soo galay oo burcad noqday burcad isku bedelay ayagu waxay ka nigeen qaybta ugu weyn dadkii ciidamada markii hore ahaa oo ayaguna laftirkooda ahaa dadkii miyiga ka yimid ayaga laftirkooda waxay ka yihiin qayb weyn marka waxa weeyaan burcadii dadkii shirkadaha lahaa oo shirkadahoodii burbureen ayaguna waxay ka yihiin qayb marka waxa su'aasha meesha la isweydiin karaa waxay tahay dadkaas maxay soo kordhiyeen walaalay waxay tiri waa wiilal yar yar oo dulman laakiin waa run businesskoodii oo dhan baa burburay shaqadoodii ay aadi jireen oo dhan baa buray laakiin maxay soo kordhiyeen oo Soomaaliya ku soo kordhiyeen dhibaatooyin aan la qiyaasi karin bay soo kordhiyeen waxaan rabaa inaan dhibaatooyinkaas wax yar ka taabto waxa kamid ah marka ugu horeysa ayaga faraha ka baxay waxay bilaabeen balwadaan caadi ahayn oo nooc walba isugu jirta waxa ay daaqada ka saareen dhammaan dhalinyaradii kale oo iskuulada dhigan jirtay gabdho iyo wiilal nooc ay rabaan ba ahaadaan dadii ay joogeen dadkii masaakiinta ah oo deganaa oo ka ganacsan jiray oo shaaha karsan jiray oo noloshooda iyo dhaqaalahooda ku tiirsanaa waxa ay soo kordhiyeen dhaqan xumo ah in gabdho la soo kireysto oo wadamo kale laga soo kireysto oo la keeno kuwaas oo la kireysto isbuuc laba isbuuc bil taasuna waxay keentay dhibaato ugu weyn oo ayaguna ay nagu soo kordhiyeen waxyaabaha kale oo la yaab kale oo aad runtii looga naxo waxa weeyaan daroogadii awal baan caadi ahayn wadankana farakul ku haysay ayay waxay sii bareen oo ku sii talaaleen dad fara badan oo aan hore u aqoonin waxa ay burburiyeen qoysas fara badan oo markii horeeto isqabay Puntland awood uma laha waxay ku gateen dhaqaale fara badan oo ay heleen oo international community ay ugu tala galeen inay siiyaan maxaa yeelay qofka ransom marka la siiyo macnaheedu waxa weey waad sii kobcisay waxa weey ransomkaas la siiyo wuxuu na gaarsiiyay inay ku badan gataan inay dhaqaale badan muxuu ahaayay oo ay kasbadeen ay wadankii ku fasahaadiyaan taas waxay keentay marka in Puntland ka dagaalanto in ay dibadaha u qayl dhaamiso iyo adduunweynaha in ummadooda dhan u qayl dhaamiso sidii wax looga qaban lahaa laakiin nasiib darro waxa la yiraahdaa Puntland dhaqaale ka heshay Puntland muxuu ahaayay burcadbadeedda ayada ah waxay kaloo noqotay Puntland muxuu hoyga burcadbadeedda bay noqotay oo la isku qayl dhaamsado kii ka yimid muxuu ahaayay xeebta ugu shaysa iyo muxuu ahaayay xeebta ugu sokaysa intaba marka dhibaato weyn oo runtii aan la soo koobi karin ayaan ku qabnaa midda labaad waxa weeyaan hay'adaha caalamiga waxyaabaha aan ka filayno waxa kamid ah inay dadkaas rehabilitation ugu sameeyaan rehabilitation-ki aan ka sugaynana waxa ay noqotay in muxuu ahaa iyagana lagu sii kobciyo waxa kale ayagana dhibaato jira wadanka waxa uu dhaqaalihiis waxa uu ku xirnaa xoolaha nool buu ku xirnaa iyo kheyraadka dabiiciga kheyraadka dabiiciga waa midkaas muxuu ahaa burburay oo xataa qofkii daban jiray xoogaa kalluunka ka raadsan jiray badda loo yaqaan maanta waa burcadbeed oo la qabanayo miyigi waxa ku xoojin jira dhalinyaradii waxa weeyaan rag iyo dumar waxay soo galeen magaalooyinka baadiyi waxa ku haray islaamo waaweyn baa ku haray odayaal dhalinyarada markay magaalada soo galaan xirfad ma laha waxay ku shaqaystaan ma laha waxa kaliya ay bilaa waxay barteen balwad waxa kaliya ay sameeyaan waxay noqotay in ay dadka dhacaan oo waliba dhacoodu uu yahay dhac bareer ah inay ku dhacaan